السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دلهانتي مداوض يالكو سدواد ورئيس قارن لي لانينو afhayeenka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya ee Owen Lef عبد القادر حسن oo loo garanog yahay cadaan hirmooge ku soo dhow nabad TV iyo barnaamijkan wareysiga gaarka ah. bismillaah aad u mahadsantihiin waa salaamantihiin waan dhowahay aad waan ugu faraxsanahay in kala qayb qaato barnaamij aad baad mahadsantahay bal marka ugu horeysa waxaad wareysigu naga saa ama warbixin kooban naga siisaa habka ay u qabsoontay sanad guuradii 37 ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ururka Owen Lef iyo sida ay ku qabsoontay dalka iyo dibadda. bismillaah aad baa loo ogyahay in guddiga fulintu wuxuu qaatay muddo 2 toddobaad 3 toddobaad ka hor la qaatay in munaasabadan la weyneeyo maadaama oo marxaladahan dambe dadka yar shaki galay mugdi galay hawshii halgankii hubaysnayd hawlihii dibadaha ka socon jiray aad u xoog badnaa ayna sawirku sidii ahayn in halganka gudaha iyo dibadda iyo jaaliyadaha iyo geeska Afrika inuu xoogan yahay oo jooxo ay ku socoto meesha u socotay oo shacabkeedina ku xiran yahay in la muujiyo ahayd munaasabadan isbedeladan ay dhacayaan oo geeska Afrika la sardiyo oo Itoobiya dhaxaysa isharti xoog badan oo tartan waqooyiga dhaxdiisa ka socda uu jiro inaan dhankeena muujino ayaa ahayd marka si fiican buu dhacay si la yaab loo dhacay meelihii la tartansiinayay waxaan filayaa qodob faafintii iyo activistiyaasha dhalinyarada ayaa tartansiinayay meelaha waaweyn Nairobi iyo Minneapolis iyo Jigjiga iyo Khabardaari iyo meelaha la soo gabdhigay Kismaayo iyo marka si qiimo badan u dhacday oo ilaa 30 magaalo oo deegaankeena khilaafka ururka Owen Lef soo dhaxgalay dhawaanahan muxuu salka ku hayaa wala garanaya waxa la garanaya waxyaabaha la garanaya wuxuu salka ku hayaa wuxuu salka ku hayaa dareeno gurubaysan shakhsiyaysan xukuumadda ku xiran BB faragelin badan baan haysaa intii doorashada hadaad u fiirsanaysan khilaafka ururku si doorashada ku abuureyso u dhashay wuxuuna xiriir toos la leeyahay wali doorashada waxaana factor weyn sabab weyn waxa ka ah xukuumadda sababta xukuumaddu factorka wastayna waa sababta doorashada la xiriirta marka dadkeenu lama qabsanin in maartay xisbigaaga iyo doorashadiisa iyo aragtidiisa iyo xubnihiisa aad ugu koobnaato marka haddaan is wada naqaano is wada deegaan nahay xagga u durug isa saameyn marka waa wax ay dawladdu waa wax aan lafta ku cusub dhaqan lahaan jiray ma dhaqan xubin oo laf mas'uul oo laf loo yaqaan ma inta koox meel iska tagto caana isku shubtay taa anaga muxuu ahay kan iyo keera weligeed ma dhicin marka waa arrin cusub weeyaan waxaad sheegtay in dawladdu ay ka tahay mas'uul maxay dawladdu sideeday maadaama ururkiina weeyaan si dawladdu qayb ma noqon kartaa ururkiina gudihiisa waxa khilaafka soo kala dhaxgala waxay uga tahay dawladdu waxaad ku garanaysaa dawladdu shaqo dhan weyna eedeynaysa daraad weyna eedeynaysa urur aan xaq u dir ahayn 30 sano la goynayay dagaal aan xaq darahayn la galiyay magac qabiil wata celiyay mariyay hal ugu banaan baxoy hal la dilooy hal la baabi'iyo haddana iyadoo aan laftu waan taageeraynaa hebel baan u taageeraynaa dhaqaalan siinaynaa xafiis baan magacooda ku siinaa xafladahooda ka qayb galaynaa waan empower garaynaynaa marka labada contradiction iska soo horjeedsanaa oo muddo 3 bilood 4 bilood gudahooda 3 bilood ka hor dawladdu shaydaan bay ka dhigaysaa oo la fodhan in baa fiican hataa ma lahayn waqti shaydaan oo la fodhan halgan khasaaraha oo dhiig badan ku daatay qolo damiinaa qolo waxay u jeedaan la garan waayay qolo waxay aaminsan yihiin Itoobiya qalaasa ka ridi doono say sidaa ma u tilmaamayo waxaan rabnaa kuwa wadana cumaamada oo la fowata bal isqabadsi marka aad bal mahadsantahay dad badan waxa jira ku doodaya in ururka Owen Lef qabiil yahay dadkaasi sida hadda la sheegayba laba kala dhinac ama laba qabiil ay u qaybsantiin bay dhahaan marka su'aashaas maxaad ka jawaabtaa waxa kama jiro waya oo fulkadana qabiil ma hayna hadduu magac qabiil ka soo jeeday ujeedaduna qabiil ma ahayn halgankuna qabiil ma ahayn barnaamijkuna qabiil ma ahayn haddana ma aha xeerka iyo anshaxa iyo culture-ka iyo philosophy-ga oo laf ku dhisantay qabiil ma ahayn ururka kaliya ee magac qabiil ka soo jeeda wata ee ugu fog qabyaaladana waxaan garab joognay 40 urur Soomaaliya
oo magacyo qurux badan oo Soomaaliya wato oo qabyaalad aad u xoog badan ku hubaysan yaani una garab taagna marka waa fact taariikhi ah oo aqoonyahanka Soomaaliga iyo taariikhyahanka Soomaaliga iyo wadaniga Soomaaliga meeshtoona ku nasay geeska Afrika ku nool uu xaqiiqo u arkay way marka urursan uu soo jeedanahay hadda dawladdu way ka hawlgashay duruuf badan baan yaan ku soo hooyanay muxuu ahaa baahi badan baa taala agoontii waxna laga qaban waayay dhaawicii waxna laga qaban waayay bugtadii waxna laga qaban waayay dadkii la dhacay iyo agoontoodii waxba u qaban waayeen marka dawladdu waxay damcday inay wax kasta ay bixinayso in waxay ka baqayso in onlaf in u noqdo xoog isla markaana inuu isticmaasho weeye in dhagax laba shimbirood ku disho inuu qofka ururka kaga saarto isla markaana kaga horgeento marka haddii ayna dawladdu ku lamaanayn khilaafka onlaf sidaa ma noqdeen dowlad deegaanada kale iyo xisbiyada mucaaradka ah sidoo kale soo xarooday nabadda qaatay iyo deegaanadooda iskaashanay waxa inta badan ka shaqeeyaan sidii ay hal iyagoo midaysan dawladda dhexe ay xaqooda ugu raadsan lahaayeen taasi idinka maxaa idinkii xukuumadda maxaad saas u sameyn weydeen adeerkiis waxa weeye warinta weeye anagu sababtaan nabadda bari u qaadanay inaan wax qurux badan oo markaa aan qabanayay ma ahayn inay dhamaatay ahayd iska soo horjeedka qolada talada haysay jigjiga joogtay ururka onlef ina iman karto marxalad aan dawladda dhexe bur weyn nala dhacayno dadkeena midoobi karo oo aan dawladda wada jir u dhisan karo mucaaradnimada wada jir u dhisan karo difaaca danta Soomaaliyeed laba waji oo isla shaqeynaya aan noqon lahayn xoog isla shaqeeya aan noqono duruufaha Itoobiya inay ku yimaadaan laga yaabo inay wada jir inaan u galno marka anagu waxaan u soo xaroonay wuxuu ahaa inuu dhamaado Soomaaliya Itoobiya la jirta federaalka la jirta iyo Soomaaliya ka soo horjeeda inaan haday doonto sawir sida ha noqdo laakiin aan dhan walba ka wada soconay marka mushkiladan marka xalina waxay ahayd kolkaan qadiyad umada kor u qaadnaba waaxid jigjiga joogo oo 4 shilin maamulo oo dana ilaashanaya inuu yiraahdo Itoobiya jannaan ku qabnaa waxba nama yeesho dadka iyada ugu fiican anaga ismaamulo anaga xornimo siyaasi ah xornimo ismaamul xornimo xuquuqeed roolka weyn baan leenahay xor baan anaga horumarna jannaan ku jiraan dhahan taa ina meesha ka baxday haydo waxaan isku ognayna sheegan waxay nala ogyihiin aan sheegno marka hadee hogaaminta xukuumadda maanta capacity ma laha isoo mara malagi galaan bay karaan ma santahay muddo dheer baa loo dagaalamay in xornimo deegaanka qaata ama uu Itoobiya inteeda kale ka xiroodo ilaa haatan xornimadii wali lama hayo heshiis baad sheegteen in Itoobiya la gashay heshiiskaasi muxuu ku qotamay oo salka ku haya heshiiska wuxuu ku qotamay koow Itoobiya inay ku xurmayso xeerarkeeda xuquuqda xeerarkeeda ku qoran dadka Soomaaliyeed heli karaan inay ismaamulaan inay wax la wadaagaan inay dhaqankooda iyo dhaqaalahooda iyo siyaasadooda horumarin karaan iyo qodobka kale oo ahaa in ONF ay nabaadiida ay aaminsanayeen nabadgelyo ugu halgaanto waxa qodobka saddexaad wuxuu ahaa in waxyaabahan isku khilaafsanahay ee dadka Soomaaliyeed iyo Itoobiyada maamuleysay ay isku khilaafsan yihiin in si qoto dheer looga sii doodo iyadoo nabad tahay oo laba guddi la dhiso guddi heer kaliya muxuu ahaa ONF guddi heer federaal iyo ONF oo waxyaabahan go'aanayna Soomaali go'aanayso si laga sii la faguro ahayd saddex qodob oo ah saldhig ma garanaysa inta badan maanta waxa dadku idinku eedeynayaan inaad laba saf u kala fadhidaano idinkii dawladda federaalka aad salka ku haysaan garabka kalena oo dawlad deegaanka garabka ku hayo markaasi taas maxaa ka jira waxa kama jira anaga in yaro ay dawladdu xagga dambe shaarka ka jiiday baa yaa naga maqan dawladda federaalka ana mashaqaalaheeda anagu ka xignaa qoladii ay soo magacawday ee la shaqeysay isku xisbiga yihiin ee ogtahay maartay BB wada yihiin dawladda federaalka anagu col gaarana manni nabad gaarana manni marka mana qalma nidaamka TPLF wadanku maamulayso oo idinka nabadda qaatay marka ay TPLF meesha ka baxday mise sidii naba waxaad diidanideen nidaamkaas dalka midaan dagaalka kaga baxday nidaamkaas anagoo
intaan isdooranay baarlamaankii ugu horreysay Soomaaliya doorato xilliga on lafbay madaxweyne ugu horreeyay si sharci loo doortay Cabdullaahi Sacdi waa madaxweynihii ku xigayna si sharci loo doortay wuxuu asaguna Xasan Jire Qalin loo doortay ma jiro ama doorasho ka dhacday Itoobiya hal dhamayaan dheh wayna soo yaraanaysa macnaha 95 ahayd dhowr baarlamaan gashay teeda 2010 hal iyo laba saddex baa galay oo waxa ka dhashay yeedis baa tii ka sii dambeysay ka sii dareysay marka anagu markii isbedelku uu ku dhacay maamulka Itoobiya dawladda Abiy waxay ku dhawaaqday prime minister gaaraan waxa ku dhawaaqay in dadka Soomaaliyeed la dulmiyay in Olaf xaqtir ahayd inayna ahayn argagixiso inay argagixiso xukuumad ku dhaqmaysa ay ka horta ay la diriyeen marka waxaan u arkaynay inuu iman karo jawi inaan annaga iyo federaalka iyo kililka isla socdaan garaacno sanadan iyana dadka Soomaaliyeed ku soo dhex noqono aan halgeemi karaan iyaguna hadli karaan ismaamulku xor noqon karo aqoonyahanka kililku xor noqon karo shacabkeena xor noqon karo afkaartana si nabad ugu gudbino inuu wada jira aan afkaar Soomaaliyeed iyo xoog Soomaaliyeed dhaqaaq Soomaaliyeed marra xukuumadaysan marra shacbiyaysan marra muxuu ahaay xisbiyaysan aan qaadi karno marka aad doorashada ku guuleysateen maxay ka hortaageen inaad imka sidan aad sheegayso dadkii Soomaaliyeed oo mida ay wada halgamaan maxaa taas diiday ama ku qotan bariga si fiican baan u abaabulay halkan xisbiga WSDP la barigaas yani xisbiga Soomaaliyeed ma soo tagay hal guddi baan soo tagnay 13 xisbi wahayn afkaar baan midaynay ay ka talintii muqasdahay dawlad Soomaaliya dhisno dhul Soomaaliya midaysan dadka Soomaalida midaysan degmooyinkii la isku haysto oo wasanaano xuquuqda federaalka naga maqanayno waxayno amnigeena oo sugno muxuu ahaa luqadda iyo dhaqanka iyo diinta iyo hidaha Soomaaliya kor loo qaado xisbiyada barnaamij baan ku midaynay anaga meel fiican marinayna EPRDF waxay moodeysay on laftu shaydaan la wada necab yahay marka taa iyo isku haleynaya maxaa arkan on laftu oo dadka oo dhan jecel yahay xisbiyada Soomaaliya kulka saxabad noo qaadatay haddaan si joogleen 5 sano xabada deyn lahayd dadka Soomaaliyeed aad iyo aad xoog noqon lahayn dawladda iyo on lafna si fiican bay u shaqeyn lahayn federaalka iyo dadka Soomaaliyeed way si fiican u dhil garayaan bay xuquuqdooda ka dalban lahayn laga bilaabo maalinka dalbashada xuquuqdooda dhan hadaga dood adag bariga dawladda noo dhaxayso xukuumaddan joognay dood adag baa noo dhaxayso baray minister waan la doonay meelas waan la doonay wasaaradaha horumarinta lacagta ee u qoran Soomaalida wax xuquuqaha qoran afkiina ku qoran leeyahay far Soomaaliya ku qoran waxa ku qortaa meel farxabash waan diidnay budget 7 milyan oo la siiyay way diideen anaguna lacag la'aan ma ku dabaqnay yaan ku soo saar marka waxaan ahayn maamul Soomaaliya oo halgan ugu jira soo dhicinta iyo difaacidda xuquuqda iyo jiritaanka iyo culture-ka iyo jiritaanka dad Soomaaliya dhul iyo dad xoog liya dhaqan inay jiraan waa jiritaanka dadka Soomaaliya difaaciisa meel weyn baan kaga jiray markay arkeen inaan caalamkan xiriir la leeyahay online jaaliyado safaarada aad nagu xiriiriyay aanan aaminsan si Itoobiya ka jacalaha lagu dhufto isha aan dhay markay arkeen Soomaalidii kale iyo qabaa'ilkii xisbiyada sameeysan ay si midoobayaan iyo xabad lagu bilaabay maamulka hadda jira deegaanka Soomaalida ka jira iyo idinku marna ma soo bardhigteen aragtida ah inaad hal mid idinku aad ku wada doodaan federaalka xuquuqdeena kaga maqan marar badan adeero marar hay'adaha dhexdhexaadii waxaan ku heshiinay ma soconin marar labadanada kulanay gudiyo wada jiraan sameeysanay wax soo saar ma yeelanin marar xoog Soomaaliya iyo hay'adaha Soomaaliya oo muxuu ahaay NGO iyo hay'ada mufakiriin ah hay'adaha cilmi baarista iyo waxigaas baa isku dayay wali ma dhal ma noqonin anigu waxaan isleeyahay marxaladan dadka Soomaaliyeed marxalad ka noqdo wixii naga xumaaday xukuumadana ka mas'uul oo naf diyaar bay u tahay dadka Soomaaliyeed xuquuqdooda in la difaaco in la mideeyo xisbiga talada haya iyo xisbiyada ka soo jeeda in la shaqeeyaan danta caamka in laga mideysnaado difaaca dhulka in laga mideysnaado difaaca xuquuqda Soomaaliyeed laga mideysnaado marxaladan waajihadeeda in laga mideysnaado saddexdaas salana wax inaga horjoogi karay ma jiro wax inaga horjoogi karay oo xukuumadda taliska ahayn ma jiro hadday kor diida ha sheegaan hadday kor diidayso hadday federaalku diidayaan Soomaali iyo xisbiyada kale iyo xisbiga talada haya waxba isugu iman karaan hadday lahaayeen ha sheegaan anigu ma qabo sababta anagu nabad u qaadanayna maanta aan faragelinta la nagu sameyn karin oo isfahamka Soomaalida intaan xoojino wax soo dhacsiga Soomaalida inuu bato wax iska difaacidda Soomaalida inuu bato hadda taariikhda walid taariikh waa la ogaado 3 sano anaga luntay waxaan had meeshan joognay siyaasiyan iyo muxuu ahaay dhaqaale ahaan iyo wax la qaybsi ahaan iyo muuqaalkeena
geeska Afrika iyo Ethiopia aan ku dhaxleenahay meel aad uga sareysaan joogi lahayn haddii xukuumadda ayna ka gaabinayn haddana markay halkaa maraysa yaa yaxay yidhaahda hadda waxaa fursad inoo taala qowmiyadan istiyaarin ma jirta Ethiopia ma jirto qowmiyada aan walwal ku jirin ma jirta may qowmiyada aan maxaa dib isugu noqon ma jirto way aan dib isugu noqon lahayn baaqmaas guddiga fulinta shirbu ku galay Addis Ababa hay'ado badan oo caalami ah la kulanay xogo badan baan helay wax reer galbeed ka dhaxsadaan ogaanay wax Ethiopia ka dhaxsadaan ogaanay mowqif waxaan qaadan marka dadka Soomaaliyeed la miday xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka iyo xoogga bulshada odayaal iyo dhaqan iyo maxay aqoonyahan iyo culimada diin iyo ganacsatada dadka saameynta leh intay soo yimaado in go'aan Soomaaliyeed noo yaalo doorna la siiyo mucaaradka doorna xukuumadda la siiyo kuna wada jiri noo ahaado saasaan go'aansanay cid ka soo jawaabaysa male wada maasan tahay intuu dagaalku socday idinkii Ethiopia dagaal wadeen dastuurka Ethiopia si cad bay u diidanayeen hadda oo nabad qaadateen dastuurka Ethiopia maxaad ka aaminsantihiin dastuurka Ethiopia wada hadalka shuruucda Ethiopia xuquuqda ku qoran dadka Soomaaliyeed inay ixtiraamaan oo dadka Soomaaliyeed xuquuq waxaa jira mesela dastuurka Ethiopia wala la horjeeday idinku maxaad ka aaminsantihiin aan inta faaleeyo xukuumadda waxay sida keenka loo laqa dastuurka dhammaan aqriin bayo ma ogaba marka dastuurka hal la qaydin jiray wuxuu ahaa dastuurka islaamta kala marada dusheeda ay ku raacaysa aan badbaadin karin oo innocent yaali magaceeda qori aqoon waxay Ethiopia ka socdo warahayn oo waxay xiriir aan lahayn door siyaasi aan lahayn cid aan khatar ka baa la dilay dastuurka Ethiopia muxuu difaacay dastuurka Ethiopia qowmiyadaha intii qowmiyada la sameeyay in qowmiyada ismaamul la sameeyo haddana hoosta ka maran marka sheeko dastuur la intii la qaato lagu xidhnaan ama dastuur ma heliyaado la iska soconaya ma jirto danaha dadka Soomaaliyeed iyo muxuu ahaa idinku maxaad ka aaminsantihiin maadaama markii hore diidanayeen haddana nabad dastuurkan wax ka sareeya la soo kordhiyay mooyeen wax ka hooseeya oo aqbalayna ma jiro مثلا حق اسماعيل بولاي قوميات كردستان حق اسماعيل وقوميات كردستان أو رسمها إن لا تطبقوا يعني كده علمنا إن كاسي وقال شكي ووحوير إثيوبيا كل تشوين وحوير إثيوبيا كل تشوين كتحول قوميات والبينة إنت سمع مشو أو اسماعيل الدبل هذا confederation اللي يصير كتبه اسماعيل الحوق له الدنيا federation كسوية له سوء أنا كله أنا كسر رسينا النقطة وحكسيها سي ما قبلنا مرك عاي كتشي مرك علينا إلى اسمه مشو كميت إلى فدريشن محوها يسكون مع مشو كونفدريشن يسكون مع مشو أفتي إلى هالشو إلى الملح بناناته مركا وباكيتشو محوها عاي كتلنتو إلى الأفكار يسكون مع مشو إلى الدقن كار يسكون مع مشو إلى جغرافي قان يدد قان يدل قان يلا entity إلى تهاي واحد شيء ودولهان يلو اعترافسين وآي كتلوي إن الآن سمع مش آي كتلوي إن الكونفدريشن ما لبنا كنا حبنا آتاي وآي كتلوي إن الأفتلا يقعد كحرو وآي كتلوي مركا استارس كورس عنا يمين هو هوس عنا ما أقبلنا نو aad baad mahadsantahay wahagaag daawadayaal halkaad weli sida tooska nogala dhehanaysaan waa shaqada telefishinka caalamiga nabad TV waxaan ku guda jirnaa waraysigeena gaarka ah aynu la yeelanay afayeenka ururka ONLF cadaan hirmooge aad baad mahadsantahay su'aalihii qaybihii dhexe waraysiga aynu marayna dad ayaa muddo 30 sano loo dhibaateeyay ururka ONLF oo dhibaatooyin la kulmay halganka dartii maxay uga dhigan tahay inaad maanta dastuurka Ethiopia qaadataan idinkoo intaas oo dhan dadkaas loo dhibaateeyay horta dastuur Ethiopia waqaatana ma dhihin dastuurka Ethiopia marka muxuu dhigayaa inuu nusna ma dhigayaa in ay ka talin dalban karaan afti laga qaaday dhigaya marka dadkeena dastuurka qaadashadiisa waxay leedahay diinta islaamka gasho oo kale oo ka baxayso oo kaliya dis waa xeerar way dawladdu intee laga respect garaysa mooyideed tii hore intee laga respect garaysa waad garanaysaa okay xoogaga ka soo horjeeda way badan yihiin inuu saa u qoraado marka waxay uga dhigan tahay dadkan waxay u halgamayaan xuquuqdooda marka u horeysay halgamaysa waxa kamid ah ictiraafka in oo markii u horeysay Ethiopia ku qasabto aha dad Soomaaliya hatta jamhuuriyadda Soomaaliya inay kala hadasho dhulka Soomaalida way diiday dawladda Ethiopia WSLFna way diiday jabhadda Nasrullahna way diiday Ethiopia inay qadiyad jirta way inkiri jirtay oo laf waxay soo horfadhiisay
laba wafti oo aan la fiyo Ethiopia iyo hoosa qadiyada ogaadeen iyo qadiyada Somali state ku cashada dadka Soomaalida in lagala heshiiyo leeyahay nabad aan ku xalino afgaran waageena xeerarku waxay noo ogol yihiin aan siino wixii kale aan ka wada hadalno sida in la yiraahdo marka xeer baa la qaato lugaha noo xiran ma jirto lug noo xiran iyo qalbi naga xiran iyo aaya ka talin iyo gobonimo aan ka tanaasulin midna ma jirto midna u qasbi karna ma jirto sidaas oo dhigaya xeer waan ku dhex dagaalamayna xeerarka Ethiopia xuquuq badan baa dadka Soomaaliyeed kaga maqan inaan xisbi samaysano inaan doorasho galno inaan doorashada xalaal ahaato xeerarkeeda qori haddana lama dabaqo dastuurku wuxuu qorayaa ka talin afti aan dalban karno haddana lama dabaqo inaan iskeen isu maamulo inaan dhan haddana lama dabaqo inaan wadamada dib u dhacay gobolada dib u dhacay la gumaysan jiray dib loo rabo in kabitaan la siiyo haddana lama siiyo marka halkan badan baa halkan dhex yaala ku badanna way naga horeeya marka waxay uga dhigan tahay dadka Soomaaliyeed markaanu bilaabayna halganka qarsoodi baa lagu bilaabay talaabadii ku xigtay waxa ismaamulkii u horeeyay oo Soomaaliya oo calanka hadda suran sameeyay oo dastuurkii u horeeyay sameeyay oo maalinka Jumcaha fasax ka dhigay oo afka Soomaaliga ilaa galaaska 8aad ku qoray oo muxuu ahaay structure-ka goboleedana sameeyay oo Soomaali jiritaankiisa iyo u doodida dhulka inaga maqan iyo xuquuqaha inaga maqan halkaas soo gaarsin it was big muxuu ahaay step oo ay ka talinta ah marka ismaamulka inuu xoog leeyahay oo set Soomaali soo dhicay hal janan ugu maanaayiman kuraasti beriga la sugayay hoos baa loo celiyay 23 kursi bay Soomaalidu noqdeen kuraas badan baa kaga maqan federationka hal wasiir iyo labo midkood baan ka helaa oo hadda ugu badan laba wasiir la gaarsiiyay u malayn qowmiyadda saddexaad baa ugu dhul weyn marka xaggan in ismaamulkii Sacuudi xuquuq badan baa laga xoroobideena xuquuq badan baa kaga maqan marka dadka maxay uga dhigan tahay oo laf inay dhufeyska nabadda markii lagu jiro xaaladda nabadda inay si aad inta u dagaalanto dadka Soomaaliyeed ay u durkiso ooda Sacuudiinta u durkiso Sacuudiinta xuquuqeed dhulka ka maqan xuquuqda ka maqan xuquuqda dhaqaale ka maqan xuquuqda ismaamulka ka maqan waxaan hadda dhulka ugu weyn baan qowmiyadda saddexaad baan maxay Itoobiya ka dhaxnahay waxaad yar baan kana waxaan dareemay anigu diiday oo leenahay Itoobiyaanka iyo reer galbeedka iyo reer bariga iyo reer waqooyiga cid doontaa magac doontaa sheegtay inaan u sheegayno dadka Soomaaliyeed inayna noqonayn others aayaha Ethiopia meesha lagu jeexjeexay inaan faaska ugu weyn dib wax ku jeexjeexna mooyaan inaan ka jeexjeexno xuquuqda muxuu ahaay qowmiyadda saddexaad aan ka noqono mooyaan jamhuuriyadda dariskooda noqonayna hadii aan taaweyn marka waan dadka Soomaaliyeed halkii ku difaacnaan u nimid ninna qalina lagu ma caburin karo qorina lagu ma caburin karo deen waan difaacnay dhiig baan u horay waqti baan u horay hadana cod iyo qayli iyo cari iyo cadaawad baan u horayna waan ogolayna marka dadka Soomaaliyeed halkan ku difaacnay way maanta marxalada aan nabad u doodi karo Ethiopia isbedel marayso doodi socoto dunidu marxaati tahay la isdhex ordayo way marka habka aan ku dagaalamayno aad buu qiimo badan yahay maanta dadweynaheena iyo dawladda iyo oo lafna kulli way iskaashan karaan hadii danaysi shakhsi uu soo meesha dhexordayn waan gar aad bad ma santahay sida dadka u dhuntureela siyaasadda ururka iyo tan Ethiopia ay sheegaan heshiiska marka ay dhex marayay Ethiopia idinka wax qayb kama ahayn beesha caalamka ugu yaraan urur goboleedka igad taasi waxay sheegaan siyaasiyiintaas inay dhabar jab ku ahayd markii ay idinkoo laba dal aan raahday jabhad iyo wadan dagaalamay ahaydeen haddana ururka aad nabadda qaadataan taasi maxaad kaga jawaabaysaa horta dawladda Eritrea goobjoog bahayd wadamada reer galbeedka iyo hay'adihii ADCR ee dhexdhexaadin jirtay iyo igaadna aweer bay ahaayeen waxaa ka soo qaranay madax Kenya ka soo qayb gashay dawladda Djibouti waa markaas yani dawladda Eritrea goobjoog ahayd dawladda Eritrea oo annagana saaxiib nala iyadana saaxiib la ahayd yaa goobjoog ahayd marka hadafka anagu lahayn IBRDFtii hore aad ma aanu aaminin in goobjoog saddexaad iyo wada hadal aad u adag dhacaan mooyaan Soomaaliland keenin 12 jeer baan IBRDFtii hore si official soo horfarisan waxba kama iman soddoniyo jeer 40 jeerna gudaha iyo meelo gaar iyo meelo gooni ah la isku arko waxba kama soo baxayn tan waxay xoog soo baxayeen waji cusub oo cadawyo badan baa hareeraha kaga socday dawladda Ethiopia baaq aad u qurux badan oo dimuqraadi soo jeesay itiraafkii ugu horeysay dadka Soomaaliyeed la dulmiyay oo aan naf xaq u dir lahayd oo xabsiyadii baabisay maxaabiis siyaasi soo jeesay marka anagu
Ethiopia makhraati u yeesha kaliya markaa kuma naan buuxin waxaan ku buuxnay dadka Soomaaliyeed fursad u helaan inay guryahooda nabad isugu tagaan iyagoo nabada dawladooda iyo jabhadda iyo shacabka weyn wada tashadaan yaa ka qiimo badan maanta inaan shuruudo caalami ah daydayno waan runtii baahan hadda waxaynu ahayn 3 sano nabad ah 3 sano oo muxuu ahaay dadka Soomaaliyeed nasteen 3 sano hal abuur iyo dhaqaale iyo isku day bilaabeen 3 sano oo hadii ayna xukuumaddu nafjeclaysi darteed ayna muxuu ahaay awoodda dawladnimada shacabka intay gashato ayna meel dib isu urnaadeen jirin horumar weyn baan gaar lahayn xagga siyaasadda waxbaan riixan lahayn xagga midaynta iyo soomaaliyeynta fikirka Soomaalida isku duubkooda meel weyn gaar lahayn xagga dhaqaalaha meel weyn gaar lahayn sababtoo door kala duwan baan sameyn lahayn hadda awaantii aad sheegaysaa oo wax badan baan u qaban lahayn sadexasan dibadajin baan u sameyn lahayn taageero caalami aan u heli lahayn hay'adaha dawladda iyo anagu isla ognayn baa u howlgal lahaa wax badan inay olaf u noqdaan xoog iyadoo ka baqaysa iyo wadaniyad xumo iyo xukuumadda la dhaqaajin weyd doorashada lixaad ee dalka ka dhacaysa deegaanka dalka ka dhacday aan raahday deegaankana ay weli tahay maxaad kula muuqataa inay kaga duwan tahay doorashooyinkii hore Ethiopia wallahi code of conduct xeerarka doorashada waxa marka xeerar ka qurux badan kuwii hore unba ay muuqda waxa kale ay muuqda impeachment-iga socda iyo jabinta xeerarku tii hore ka badan tahay tii hore inta bahal badan soo dhoobto oo la dabaqo oo la waxeeyo oo dawladdu wax banaanka jooga iska dhigto unba ay dhiisata caliga ay soo baxo waaba kan moogta hadda duurka cabaa wadada loo istaago waxa la moogta aqal baa la dhiganayaa laakiin xagga furfurnaanta iyo qof madax banaan u sharaxo xisbiyo badan bariyaas ma sharaxi karin hadda waad sharaxi kartaa bariyaas ma sharaxi karin code of conduct uu ka duwan yahay laakiin waxaas leeyahay xataa ruulka u yaala doorashada ku xadgudubkiisu aad buu u dhiiran yahay maanta u dhiiran yahay aad buu u dhiiran yahay badnaasanta muxuu yahay qorshihiin ma waxaad ku sii adkeysanaysaan qorshihii hore ahaa in Ethiopia uu deegaankani ka go mise sida haddaba muuqata isbedelka ay la jaan qaadaysaan oo Ethiopia ayaad mid ka sii haanaysaan horta Ethiopia dastuurkeeda xoogay in lagu ogol yahay in la ismaamulana uu ogol yahay haddana duruufta Ethiopia dama under question ku jirta hardanka qoomiyad walba ayaheeda ku balaarsanaysan ka midna yaan ka midnahay marka dadkana wuu naga haro oo koox qorshaha ku sii adkeysanaysan mise isbedelka la jaan qaadaysaan oo Ethiopia mid baad ka sii haanaysaan arinta ay ka talinta anagu waan ku dhaganahay dadkana wuu ku dhagan yahay laakiin ay ka talinta istaabiya iyadu ina ismaamusho ay ka talin ismaamul xoog linaayay ay ka talin inaad ogoleysiiso dawladda Ethiopia ama aad soo diyaariso afti waa ay ka talin way inaad madax banaato oo dawladda dhisato waa ay ka talin way marka hardan baan ugu jiraa sidaas aan dadka Soomaaliyeed go'aanka iska leh annagu waxaan ku qasbaynay markaan qori wadan dawladda Ethiopia inay ogolaato dadka Soomaaliyeed afti laga qaado ma waxay u taagaysan gooni ma anaga noolaanaysaan ma cid kale la noolaanaysaan su'aasha ay ka talintu macnaheedu waa sidaa moogta marka Ethiopia waxay isdiidsiin jirtay dadkiina waxay doonayaan lama weydiinayo marka hadda duruufuhu waxay u socdaan in ummad waliba waxay u socoto la weydiiyo marka hardankaas aynu ka midnahay xoogaga muxuu ahaayay horseedku ah shacabkana go'aanka iska leh hadduu Ethiopia la noolaan of go'aanka lagama go'ay hadduu kaga go'aankiisa kaga go'aana cidna ma qasbi karto waa xaqiiqo weyn maangal miya mise waa mid loo ogyahay waxa way wariyaashuna ma ogtahay investigator inaad tahay wey factiga aad ogtihiin dawladda maanta waa la sheegi karaa dawladda yaabay ku noqotay wixii xisbi ahaa ee mucaarad ahaa doorasho galay risalkii ka soo baxay waqooyiga gobolada kale waad yaabteen soo ma dunida way yaabtay xisbiyada way yaabtay saxaafadda Ethiopia way yaabtay observer goobjoogayaasha iyo xeeldheerayaashuna way yaabeen marka everything baa suuragal Ethiopia hatta marka ardayda tartanayna aan lahayn waan doorasho dadkana inuu isdoorto iyo dimuqraadiyad xukunka lagu yimaado iyo in xisbiga talada hayo wadanka iska lahayn iyo in shacabku ra'yi leeyahay in xoogag shacbi oo kale iman karaan hala tuso markaan anagu aan galeynay doorashada ee marashixiin soo saareen
dad badan baa lahaa meesha waa Ethiopia maxaa iska waalaysaan cid la doortay ma jirta maxaa iska waalaysaan weligeed ba ruux doorasho ku yimid yimaado ruux magacaabid ku yimaado mooyaan baawarka cidda joogta ee idaacadaha kaga dhawaaqda ee magacaawda hay'adaha doorashada baa soo baxday hay'adda doorashada cidda magacaawday booliska iyo goobjoogayaasha iyo dadka saxiixa u dambeeya lahaa gudoomiyaha degmooyinka inay doorashada dhacday iyo systemkaas oo dhan baa sidaan maxaa iska waalaysaan baa marka halkii baan u galeynaa bay ahayd marka aad baan u filaynaa inay faragelin dhacdo aad iyo aad baan u filaynaa waad mahadsan tahay idinka kawana lafhaan haddii Ethiopia ay cadaadis siyaasadeed saarto sida kii 94 ma laga yaabaa in lafintay qalinka dhigto in qoriga dib ugu laabato balse fikirkaasi haddii uu hana qaado maxaa sida wajigii hore ku soo dhamaaday halganku maadaama cadaadis la idin saaray aad sheegteen inaad ku baxdeen hadda ma laga yaabaa cadaadis haddii la idin saaro in aad duurka dib ugu laabataan oo qoriga qaadaan inta qalinka dhigtaan hadda cadaadis nalaama yaran laakiin hadda waan aad baan u bisil lahay cadaadiska 3 sano la saaray imsa xafiis bana laga xiray imsa calan baa la jeexjeexay hadda mas'uuliyiin guddi fulina Ethiopia haddii aad kala kulantaan cadaadis siyaasadeed kii 94 oo kale duurka ugu baxdeen ma laga yaabaa inaad dib ugu laabataan duurka oo qoriga qaadaan waan ka bisil lahay marxaladaas oo kale iyana way ka duwan taas leeyahay systemka EPRDF oo kale maxaa yeelay haddaba cadaadis badan baan xagee joogtay 3 sano damis inta xafiisna laga xiray inta calan la jeexjeexay waxaan isku ogeyn la fulin waayay waxaan isku ogeyn dawladda Ethiopia in xafiisna laga siiyo jigjiga nalama siin in dirdhabana laga siiyo nalama siin in Addis Ababa laga siiyo hal xafiis oo yar baa Addis Ababa laga siiyo in gobolada saas oo kale in aan gudiyo wada jira dhisno oo khilaafaadka Soomaalida Ethiopia xalliya gudiyo heer kale iyo kuwa federaal wax badan baan tirsanaynay dibadajintii dagaalyahankanagii oo muxuu ahaa suuqa kala gala la yiri agoontanada wax loo qabanin qaxootigii Soomaalida go'aankiina wuxuu yahay dadka Soomaaliyeed dib ugu laaban duurka mar walba cadaadis kasta fadhiga aan kaga adagnahay maxaan duurka doonayna waxaan kaga adagnahay fadhiga iyo magaalada shacabka Soomaaliyeed baa nala dagaalgali codka Soomaaliyeed baa nala dagaalgali qalinka Soomaaliyeed baa nala dagaalgali saxaafadda Soomaaliyeed baa nala dagaalgali difaaca xuquuqdooda maanta waxaan rabnaa dadka si aan haddaan ka dhaxbaxno wax gelintu waa adkaanaysa laakiin inaan dadka bislayno heer ay difaacan karaan xuquuqdooda iyagoo nabad ah lagama taagroono marka Ethiopia maxay nagu sameeyeen ma inta waxay nagu sameeyeen ka badan bay nagu sameeyeen inuu ma sameyn karto marka hadda maanta aan ku leeyahay mas'uuliyiin guddi fulina mas'uuliyiin golaha dhexe mas'uuliyiin baarlamaan u sharxan murashaxiin oo sharci darro in la xiro yaa dhagaxbuur hadda ku xidhan sharabay ka yimaadeen gobollo kale burqod bay ka yimaadeen xalay dhagaxbuur ku soo yeen isla xalay fiidkii baa la xidhay maxay ka dhigan tahay wax kale dawladdeenu qabato ay xidho way weydmiya nin siyaasi oo baarlamaan u sharaxan oo guddi fulin ah oo urur oo halgamaa oo ururka weyn oo laf ka tirsan huujka geeska Afrika iyo caalamka iyo Somali state baa muxuu ahay gilgili kara isaga la dhaqmaysaa marka waxay diidayaan reaction baalkii way naga waayeen laakiin way iskor furfuri doontaan shacabku ma arki hor dambe way ilka beeli dadkuna wuxuu ku nici doonaa muxuu ahaa dhaqanka noocan ah cadaadis wuxuu wax ku digada idinku xisbiga tiin doorashada ayaa u tartamaysaan maxay isleedina wax ka bedeshaan haddii doorashada ku soo baxdaan dadka naga adoonsi ku jiri maayo xukuumaddu iyo xisbiga talada haya adoon uma noqon karaan dadku shacbi xor ah oo na dhaleeli kara oo na caayi kara saxaafad xor ah oo na hadli karta si activist xor ah oo dadku u dhaqdhaqaaqi kara oo maskaxda umiyada laga kaacin iyo dawlad sax ah oo rule of law ah dadka Soomaaliyeed rule of law kuma fiicna leeyahay in la baro lama doonayo dadku ay ku dadaan soo dawladdu kuma dadaan soo madaxda kuma dadaan soo aqoonyahan kuma dadaan soo culimada kuma dadaan dadka kurkiisu maxaa la geel waayeelkiisu durduriyay arrinkiisa maxaa dhammaan haddii corruption iyo tuugo iyo xisdaan marin iyo eexiyo lagu arko madaxda dawladda shacabku wuxuu sidan waa dhaqanka caadiga ah ee sharafta aan loo qaadan sama anagu waxaan rabnaa dawlad dadku leeyahay inay dhalato dawlad aan dadka lahayn inay dhalato dawlad dadka u shaqeysa inay dhalato dawlad muxuu ahaayay ka shaqeysata inay noqon dawlad institution la inay noqoto aad isleedihiin aad wax ka bedeshaan ama aad wax ku soo kordhisaan yes waxa kamid institution hay'adaha noo dhisnaba
baarlamaankeena wadatay waxba ma maxkamadaheenu waxba ma booliskeenu waxba ma xeer ilaalinteenu waa corrupted waa say doonta iska yeel way siyaasadeenba ninkana la iska dhaxarkay fayl siyaasada waxaa loo diiday dembi marka dalka iyo ummadda inaad difaacayso iyo inaad moogtahay in arrin siyaasi ah aad karaa ugu bedelayso marka wasaaradaheenu say u dhisan yihiin wasiir baa iman waxbuu xaaqi ku kala iman inka dambeysuu xaaqi institutionadana ma dhisna kow infrastructurekeena waa la gartay dhaqaalihii wixii buu u baahan yahay isna ma dhisna laakiin markaa institution dhisan leedahay iyo infrastructure dhisan keeni kartaa dadkeena lama empower garayn saxaafadeena ma empower garaysna dhalinyarada ma empower garaysna dadku waxay hadda Soomaaliya anagu doorasho gelin dadku waxay u cabsanayaan waxa waan idin qaban lahaa shaqaale wasaaradda heblaan waxa ka yahay mushaarka laga jaro waxa laga xisbigii baa dadkii shaqaalihii wuxuu ka jaranayaa mushaarka waa hore iska ahaydo tii hore laga dhaxlay marka culture-kan dadkeena inuu noqon waayo dad qiyam leh oo wadanka jecel oo dawladda jecel oo dawladda daacad ugu shaqeeya oo wadankiisa daacad ugu shaqeeya oo qadiyada ka hortimaado run ka sheega oo moral responsibility leh oo ethics ama akhlaaqiyad lagu shaqeeyo leh maxaa diiday waxa diiday habka loola dhaqmayo shaqada sida khaladka lagu qori sida khaladka laga eriyayo Allahumma musta'an hay'adahan aan maartay insaan sameeyeen cadaalad sameeyeen insaafka sameeyeen marka waxaan rabnaa dawlad Soomaaliya oo wanaagsan oo dadku kalsoon yahay horumarisa oo u dhista muxuu ahaayay muassasaad ama institutiono anfaca oo xukuumadda dheelitira waxaan sameyn lahayn golaha guurtida habka dhaqaaluhu u yaalo waa hab khaldan wey qof Soomaali oo 100 ruux shaqaalaysiin kara milyan way cayru naga dhigay marka aragtay Ethiopian kambaniyada wada yaabaysa dadka Soomaalidu waa dadka shirkadaha iyo entrepreneurska aad ugu fiican wey waa dadka hal abuur kale wey marka banaanka joogno Ethiopian inaga ka hal abuur badan qof kolkaana inaga ka soo wax soo saar badan way aan cayr u nahay hal warshada mala dhulkeena way hal company ama leh way marka habka dhaqaalaha horumarin baan yaan gelin lahayn aad baad mahadsan tahay waxaan soo gaarnay qaybihii ugu dambeeyay ee wareysigan gaarka sida la wada ogsoon yahay dalka Itoobiya waxa ka dhacay doorasho marka laga reebo deegaankeena iyo deegaano kale dhawaan ayaa doorashada la qabanaya marka maxaa isleedahay ka soo baxi kara doorashada la gacan ur ku jirto laakiin hadda misaalinaysan waxaan misaalin waqooyi say noqotay waxaan islahay meeshaas rule of law ay kaga yar xoog badan tahay oramada iyo dhulkooda iyo amhaarada iyo dhabuubka iyo meelaha jaamacadaha iyo infrastructure iyo ururada samafalka iyo saxaafadda iyo inaga yar waxaysan way ka marka wallahi doorashada soo socota hadee muxuu ahaayay waa gacan ur ku jirta oo mustaqbalka iyo isbedelka siyaasiyiisa waxa intaas oo ahaanayaan ulkuma jarraseeda isbedeladu wax ka soo dhici kara doorasho sax inay dhacdo doorasho boqolkiiba hal aan sax ka ahayn doorasho boqolkiiba boqol khalada marka laakiin marka arato xisbigeena sidoo u dhaqmayo sidoo muxuu ahaay power hunger ku yahay kaararkii loo diiwaangelinta si loo qoray diiwaangelinta xisbiga diiwaangeliya mise guddi doorasho jira oo diiwaangeliya guddiga doorashada aad buu daciif u ah faragelinta karti ay faragelinta iskaga ciriyaan ma ayna lahayn dawladda iyo xisbiga xaakimka ana pressure-kooda isticmaalayeen inay qulaanquliya raaciyaan shaqadan socota مثلا أنا شغالة أنا أركبان حبسنا نابده أنا شرعي ونقول يعني تحت كدقنا لكن شغالة النهاي مشارب قادنا بي حتى نابه ولو إحنا رسينين مشارنا مسينين مركا خلط كده عي حسبي بي يا نابه يا نابه يا دولة صدق حاسوق قبسمي لكن دولة أود الاستعماش أنا تذكر خلط جلس مركا أركان نيرو شغالي معلمي وروي روناي معلمي ده مركا أركان إن بي واحد بصانين كرتو إن الدولة كلك يتفضلوا كبا أي مارتي أي دفاع عن قانونك
marar badan baan dacwoonay oo shirka jaayad qabano shaqaalahan sidoo u dhaqmahayo doorashadu sax ma ah waa in sharciga doorashada u yaalla ee dawladdu u dhigtay ee la wada ansixiyay xisbiyada ee baarlamaanka laga ansixiyay la dabaqo Soomaa lama dabaqayn marka maxaan ka filaynaa mooyee waynu arkaynaa waa walba si inuu bariino arki doonaa laakiin wixii Itoobiya kala ka dhacay markaan eegno annaga caanaha isku shubneen baa iman doonta su-aasha ugu dambaysa ee waraysigana maxaa baaqod bulshada u dir lahayd maadaama tahay afhayeenkii jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeen iyo ONLF waxaan u dirayaa bulshada Soomaaliyeed horta hadday doorasho timaado si sax u gala ama gacanta la idinka jabiyo ama idinka jabiyo cid idin la quman doorta wixii qofka doonta haatay cid idin la quman doorta maxaa yeelay wadada dimuqraadiyad waxaan rabnaa dimuqraadiyaddu dawladnimadka saxda dawladdu ku saxanta nolosha dadka saxma marka saas ay isugu xiran yihiin halgan aayahan u galina way halgan mustaqbalka ciyaalkeena u galina way halgan jiritaanka mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed soo noqon doon u galina way marka ma wax cadaan lagu taageeri ama xukuumadda laga soo horjeedi kaliya ma waxa weeye inaan process dimuqraadiya oo doorasho gallo inaan danta guud si geesinimo oo daacadnimo aqoon uga hadalno midnimadeena si geesinimo oo Soomaalinimo inay isugu xidhnaato oo qof walba aamin danaheena iyo mustaqbalkeena isku xidhan yahay aayaha dadka Soomaaliyeed Itoobiya mid kale isbedel ka socda waan iska seexan inta hal yar maalin baan geed caanihi inta iska seexdo yaan go'ayga barkanaya aad ma shaqeynayso marka waxaan leenahay dadka Soomaaliyeed soo jeeda jooxa taageera haday doorasho gasana taageera wixii la qumana doorta midnimo maanta u baahanahay soo hirda inooma leh ninkii saxda maanta si ciisi dibir dhali inaanu fariisano fagaarayaasha aayahan lagu jeexjeexayaan doonina dhinaca dawladana qolaas loo ognahay ay la timaado waxaada dhinaca xisbiyadana waxaas loo ognahay in maado annagu saasaan ugu baaqnay ma waxa la yiraahdo wada tashi qaran walina waan u halganaynaa aqoonyahanka iyo odayaasha iyo ururada falka iyo ganacsatada iyo hay'adaha cilmi baarista iyo dawladda iyo xisbiyaduba inay noo buraan wax Soomaaliyeed soo saaraan rabnaa marka marxaladan aanu diyaar garowno indhahan kala haynaa waa yeel baan nahay waxa socda waan aragnaa taariikhdina cafiimayso dawladana cafiimayso xukuumadda taliska haysan maanta cafiimayso wixii dadka Soomaaliyeed ka xumaada 95% iyaga iska yeelanay Allahumma hal balaqtu aad baad mahadsantahay waan kaga mahadcelinaa waqtiga qaaliga ee noortay hagaag dawadayaal intaas ayaan ku soo afmeeraynaa waraysiga gaarka ah ee nagala qayb galiyay Cabdaan Hirmooge oo ah afhayeenka ururka ONLF waraysiga waxa idin la socodsiinayay ama idin qada dhigay waa aniga Salmaan Mukhtaar dhanka maradu waa Bilaa Cabdiraxmaan habeynta iyo farsamayntu waa Engineer Sarabta dhanka baahintu waa Nuruddin Fuad waraysigan xiiseyntan oo dib u kulmi doono waxaan idin ku dhaafaynaa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.